qarax xoogan oo ay xigtay rasaas culus ayaa lagu soo waramayaa in lagu weeraray hoteelka Dusa 2 oo ku yaala xaafadda Westland ee magaalada Nairobi. Muuqaal la soo galiyay baraha bulshada ayaa muujinaya gawaari gubanaysa iyo qiiq xoogan oo isqabsaday agagaarka uu qaraxu ka dhacay. Inta la xaqiijiyay 4 ruux ayaa ku geeriyootay, dhowr kalena way ku dhaawacmeen qaraxyada lagu weeraray hoteelka ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Taliyaha ciidanka booliska dalka Kenya Joseph Bonet ayaa waxa uu sheegay in ciidanku ay u gurmadeen goobta weerarka lagu qaaday. Sidoo kale taliya Bonet waxa uu sheegay in ciidamada booliska dalka Kenya ay xireen wadooyin badan oo ku yaala magaalada Nairobi, isla markaana ay ku howlan yihiin baaritaan ay ku hayaan ciddii ka dambeysay weerarkaasi. Taliyaha ciidanka booliska dalka Kenya sidoo kale waxa uu sheegay inay uga shakisan yihiin in weerarkaasi uu ahaa mid burcadnimo. Dhanka kale, afayeen u hadlay ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cabdicasiis Abu Muscab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxyada iyo weerarka tooska ah ee lagu qaaday hoteelka Dusa ee magaalada Nairobi. Waxa uu sheegay in howlgalkaasi uu ahaa mid aad u qorshaysan, isla markaana Al-Shabaab ay ka dambeysay. dhinaca kale, madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ka mid ahaa dadkii ku sugnaa hoteelka Dusa 2, waxaana la sheegay inuu ka badbaaday weerarka iyo qaraxyada tooska ah ee galabta lagu qaaday hoteelkaasi ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Madaxweyne Xaaf oo goor dambe oo galabta ah war qoraal soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook ayaa sheegay inuu ka badbaaday weerarka ka dhacay hoteelka Dusa 2 ee magaalada Nairobi, wuxuuna cambaareeyay qaraxyada iyo weerarka lagu qaaday xaafadda Westland ee magaalada Nairobi. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, TV-ga codka Bariga Afrika, magaalada Muqdisho.